بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdulatif Xirsi waxaan kamid ahaa martida lagu casuumay inay ka qayb galaan bandhiga xayaad ee ay soo qaban qaabisay xarunta tababarada iyo la talinta ee Ustaad Kobac runtii maanta xaggan waxa iskugu yimid shirkado iyo hay'ado kala duwan oo waxbarashada caafimaadka iyo si guud qaybaha kala duwan ee bulshada ka shaqeeya goobaha aan halkan kula kulmay waxa kamid ah madrasada caanka ah ee la yiraahdo Ummul Qura oo runtii xaggan ku soo bandhigtay waxyaabo aan aad ula cajabay anigu shakhsi ahaantayda horay baraha bulshada waan ku arkayay macluumaadkooda sidoo kale waan hayay laakiin markan xaggan imid waxa la ii dhiibay buug yar oo ay ku qoran yihiin ama ay ku kooban yihiin macluumaadka kooban ee madrasadu runtii waxyaabaha halkan ku qoran ana la cajabay oo runtii la yaabay sababtoo ah waxbarashadii waxa halkan lagu daray waxyaabo kala duwan oo ay la socoto qaybihii nashaataadka qaybihii ciyaaraha qaybihii timajaraha qaybihii runtii waxa yaabo kala duwan oo aan la soo koobi karin baan halkan ku arkay marka aad baan runtii ugu bogaadinayaa maamulka macallimiinta iyo aasaasayasha dhammaan xarunta Ummul Qura la imaatinka fikirkan cusub ee quruxda badan ee dhalinyaradii lagu jeclaysiinayo waxbarashada isla markaana loo abuurayo jawi degan oo qofku waxbarashadii uu ku sii jeclaanayo isla markaana ka dhigayo qofkii mid had iyo jeer firfircoon waxaan u rajaynayaa maamulka iyo macallimiinta iyo dhammaan howlwadanada kala duwan ee madrasadan quruxda badan ee Ummul Qura inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku guuleeyo missionka ay u dajiyeen inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax ku baraan halkaan ay ka soo saaraan hadduu Ilaahay yiraahdo dadkii ummadan wax u qaban lahaa maadsanidin